وبركاته كسور هذا مركلة iyo muuqaalkeena ama cashirkeena wali waxaan ku guda jirnay koorsada New Graphic Design gaar ahaan software-ka loo yaqaano Adobe Photoshop CC 2024 maanta ama caawa cashirkeena waxaan ku qaadanaa sida loo sameeyo sawirka testera dabcan sawirka hadda original sawirka waaye before waaye sidee looga dhigaa ayaan barnay tusaale hadda sawirkan u jeedin hadda testera laga dhigay dabcan sawirada tester marka la dhigaa ama jaamacada marka tagtid inta badan ardayda waxaa la weydiiyaa sawir tester keenso ama afar sawir keenso dabcan bootirada tagaan bootirada qaabkana loogu soo sameeyaa oo waa la kala jeexaa marka qaabkee loo sameeyaa dabcan hadda kadib aad sameeysan doontid waana baran doonaa marka ugu horeyn waxaan sameynaynaa file aan tagaynaa new alena new markaan aano halka sawir oo yiriska rabnaa inaan sameyno marka hore cabirka koowaad rabnaa inaan sameyno unit ama halbeeg waxaan dooranaynaa centimeter aan dooranaynaa marka width waxaan ka dhigaynaa 3.5 aan ka dhigaynaa halka height kan ka dhigi doono 4.5 ayaan ka dhigaynaa xayawaan title-ka ama magac u baxso daartid aniga laakiin sawir testera ayaan u baxsan karaa ama magac qofka ayaan u bixin karaa testera u bixin okay resolution waxaan ku deyn doonaa 300 color-kan waxaan ku deyn doonaa RGB color kadib waxaan leeyahay grade aan leeyahay grade markaan cabirka default-ga sawirka noocan oo kale ayaa la soo firi doona waxaan rabaa marka sawirka inaan soo geliyo feel aan tagayaa sida caadiga ahayd baleysa leeyahay sawirka halkaan u yaala gabadhan iyo wiilka mid kale soo gabadhan soo gelina baleysa leeyahay gabadhi marka sawirka soo gelino halkaan qaab noocan oo kale ayuu u soo gal doona marka shift la qabo kor la ekeysi dabcan sawirka hoogaa waxaa laga yaabaa inuu jabo oo si kale noqdo laakiin dhib ma lahan cabirka sawirka loo qaadayaa saas sawirada way kaliya markii la qaadayo waxaa loo qaadaa passport size iyo ID card size ayaa loo kala qaadaa marka okay intaana sameeyay maadaama intaan sameeyay cabirka koowaad aan sameysnay sawirkan waxaan rabaa inaan background ka saaro right click ku leeyahay right click ka dhaho waxaan leeyahay resize layer aan leeyahay layer kan ka saari doona layer kan marka ka saaro isla anoo meeshan joogo sawirka dul taagan waxaan tagi doonaa properties marka tago hoos oo soo socon doona meel ay ku qoran tahay background ayaan tagi doonaa remove background ayaa leeyahay remove background marka dhaho waxaa la iga saari doonaa background-ka ayaa la iga saari doonaa okay inta laga saarayo ayaan isla fiirinaynaa tusaale ahaan hadda wuxuu sameyn doonaa layerka background-ka ayuu ku saaray inta markaa ku laabto madaxana ii soo madaxan meeshan ka soo baxay waxay cadeynay in background-ka laga saaray okay marka maxaa sameynaa hoosa imaana marka background-ka background-ka marka imaado waxaa imaana solid color ka imaana right click ku leeyahay kadib solid color halkan ka doorna solid color marka ka doorto background-ka color kan ka bedela tusaalaha color guduud aan ka dhignay haddaan waxaan ka dhigi karnaa blue aan ka dhigi karnaa sidaan ayaa u bedeli karnaa okay gabadhan blue aan ka dhignay tusaale blue maadaama aan ka dhignay dhammaan layers-kan aan rabaa inaan doorto maxaa sameynaa kan kale soo bilaaba anoo la hayo control waxaan dooranaa kaligaan siinaa dhammaantood waa selection aan ku sameynaa kadib right click aan ku leeyahay right click markaa ku dhaho right click aan ku leeyahay sorry right click markaa dhaho waxaan ku sameyn doonaa merging layer ayaan ku sameyn doonaa tusaale ahaan hadda meel kale la aadiyey sorry right click ku dheh no dhakan marka hadda ma doorno wali sidii waaye control z mar meel kale la aadiyey hadda maadaama ay noo dooriyeen right click aan leeyahay right click markaa dhaho merging layers aan leeyahay merging layer ayaan leeyahay merging layer markaa dhaho hal layer aa laga dhigay haddii laakiin layero badan ay ahaayeen marka maadaama layero badan hal layer laga dhigay waxaan tagaa edit aan tagaa edit markaa tago stroke yar aan rabaa inaad sameeyo horta marka hore intii joog marka hore markaa doorto edit tag horta waxaan sameynaa kan ka qaad dooro edit aan tagaynaa edit markaa tago stroke aan tagaa stroke markaa tago stroke-giisa waxaa rabaa color cadaan inaan ka dhigaa rabaa kadibna stroke aan u dooraynaa ilaa 15 gaarsiiyaa leena stroke-ana loo sameeyay oo geesaha markii la jarayo sawirka stroke maadaama loo sameeyay waxaan rabnaa sawirka inaan badinaa sawirkaan rabnaa inaan badino soo maaha file aan tagaynaa sida caadiga kadib new aan leeyahay new markaa dhaadid intaa soo gali doontaa printi halkan ka dooran doontaa printi markaa dhaadid A6 warqadana dooran doontaa warqad hadda joog waa jiif aan ka dhigana markaa kareeda leenahay marka kareed markaa dhano warqadii waatan lagu soo furay sawiradii aan rabnaa marka inaan badino maxaa sameynaynaa waa sawiradii ayaan rabnaa inaan badino markan dhaxda ay cancel hadda sawirkii aan joogo
sawirkan jooga marka drag and drop aan samayn doono waa qaadi doona halkaana geey doona shaashadii banaaneed ayaan keeni doona okay maadaama aan geesaan keeni doona kadib aalta la qaban doona muskiga liftiga arrowga ayaa la qaban doona saana u koobiyen doona mar kale aalta la qabo haddana koobiyey haddana mar kale arrowga la qabo adoo aalta la haya saas u koobiyey marka sawirada intaas sidaan ku sameyn okay maxaa sameynana mar kale waxaan rabaa sawirada inaan badino qaybtan hoose inaan keenaa rabaa maxaa sameynaa intaana isla dooranaa selection ku sameyn doona aalta la qaban doona kaliya waa soo jiidi doona halkaana keeni doona sidaana ku sameeyey dabcan markii saan u sameysid waxaad tagaysaa feela tagaysaa برنتيال waa daabacay dabcan waa arteen oo maleena dadka sawirada tester markay galayaan ama jaamacada bilaawaysi ama iskuul bilaawaysi ama sawirada tester shaqo ama meel keen lagu dhaho qofka portraitka jooga ama meelaha lagu dadka lagu soo joogo qaabkan oo sameeyeen waxa moogtaa wax BSD loo sawiraay ma social media lama dhigayo YouTube lama dhigayo TikTok lama dhigayo kaliya waxa la rabaa in waqtiga kaas la isticmaalo saas marka u sameysid ama baarid ina PNG ama BSD oo save gareysid kaliya failta kadibna berinta daabaco haddaadan berinta haysanin waxaa u samaysan kartaa aase BSD han u save gareyso kadib qofka oo ku daabaca u tagaysa waxa leeyahay warqadaan rabo inay soo bisid waana ugu daabici doonaa marka aad u mahadsantihiin. Assalamu alaykum.